اللهم آمين 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 waxaan rabaa inaan dhaho sheekha watay xirtaada iyo xirta sheekha ku xiran ba dadka isku xiran xirtu waa badanta نعم xirta maanta xir shaydaan baa badan xirta wanaagga noqda xirta khayraadka noqda xirta sadaqada xirta hadalka wanaagsan noqda xirta ilaahay agti loogu faano markii rabbi tabaaraka wa tacaala suu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay uu leeyahay fiiriya daraadday bay iskugu yimaadeen daraadday bay isku jecel yihiin daraadday bay isku xusahayaan dadkaas noqda ha noqda tabaaraka wa tacaala dhibaatada shaqaysanay xumaanta markay dhintaan laga dhaxlayo markay waxa weeye nool yihiin waxun lagu bartay ilmahooda iyo ahalkooda iyo faamiligooda iyo cidkoodu ay ka dhaxlayaan ha noqonin culimadiina ku xiran dhallinyaradiinaas maanta waa loo baahan yahay dhallinyarada maanta soo kacday dadka afkooda aan ku hadlayna dhibaatooyin badan bay qabaan dhallinyarooy hawl badan baa inii taalla waxaan bartan tiktoka u badan ee lagu hayo aad baan anigu uga xumahay inay dad badan aan bilaash waxa weeye diintii baa lagu soo khayrkaad ka faa'iidi kartaa waxaan anaga ahayn ba waxbay ka faa'iidaan caydaad ka faa'iidaan qashinkaad ka faa'iidaan qabyaaladaad ku faafisaan qurunkaad ku faafisaan haweenku waxa weeye waxaan lagu tirsan bay ku jiraan waxa khayrka uga faa'iideysta walaalayaal gabadhii meeshaan soo galaysay gurigaaga sida loo nadiifiyo walaalaha barkole haddaad daynay gurigaaga saasaan u tirtirtaa ninkayga sidaasaan cidyaha uga gurtaa waxa weeye gabdhow sidaas dhaha يعني وحوي نينكي قلو والبا واحد كوفي عنتها دتك كل دين تموذ كل المحاضرين ملي لا دتك قفل مال بكوفي عين واحد كوفي عنتها او خير الدين تاذ واكو قشاي بلشده هذا كو انفع لكن بلشده هكلا بلشده اخلاقهم هبرين بلشده waxa hurto ay waxa weeye diilka saxan u korinaya habarin akhlaaqiyadka ku dadaala walaaliyaal akhlaaqiyadka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ummadu waa akhlaaq waay waxay ummadi baaqi tahay inta أخلاق ذو باقته أنا واحد أركا ومدي أخلاق ورنتي إليك هاللابس أو حياله حن لسوق بني أو وحوي أي عيدي يفساد يقدر يضبط يقرنك بدني ولا ليال هذا أساس كسرنا وأنا الهلاك بدرتان أنا كان قررك وين يعلم ماذا أنا ماشى فرد ذا أنكم كترنا أن الهلاك النبي وحي إذا كثر الخبث عليه الصلاة والسلام هذا حمانته صزاباي أنا هلك وفينا صالح نبي وحي إذا كثر الخبث عليه الصلاة والسلام سماهين والله إذا مركا خبث كنا قدايا خبث كيسكيري إلهي بريا كوينة تبرت الدرن قعان قبت أقونت مساكينتا lacagtaad ku dheelaysaan giftiyadaad heshaan waxaad qabiilka ku dheelaysaan masaakiinta iyo agoonta iyo armalaadka iyo dadka xanuunsan iyo dadka dhibaatooyinka qabta ilaahay baa idin naxariisanay ilaahay baa roob idin siinay ilaahay baa qalbigeena isku dumay ilaahay baa idin jeclaanay haddaad diidaan soo maahan xumaanta maanta ina haysa weliga laga bixi maayo abaar ba laga bixi maayo colaad laga bixi intaba waan haysaa abaar baa jirta colaad baa jirta qulubtii oo kala tagtay baa jirta maxaa keenay waxa keenay macaasida keenaysa qalbaad معاصي حمانتا كينيس مركا معاصي أنو كبحنو كل شيء خاوتي وكل رادي انت صار تبيناني نجارسيو إلهي كيابا يرضي وقال مركا ديمتو waxa ugu horeyso lagu weydiinayo waa dhalinyarada soo nabigu sheegay عليه الصلاة والسلام هو شبابك لنزل القدم حتى يزول الشباب فيما أفنى وردليرنمدان وروحدان هذا اللدن وناقن قدرتنا الله واحد لما ينكرت حاجات كباب يسوي الودين يا خلفا اسأل نفسك ما هدي اللي ودينا يا قرمين نقول كرت الله وعلم حتى نقول كرت لحظة كم دمنا يسمعني كستا يوروبيا أمريكا أفريقيا دقيقة هبل باتشوق حالة مساحة واسوق خلاص قامت قيامته سؤال شو بلابط خلفات المركة وحال الربع إن دلني لماذا باتولين إنسان باتولين ما تقاناني معناها تقول عيار إنسان وهذا الواويني أنا أقول أيوه باتولين تواهول كله مركب واحد دلني لماذا تقول ده إنسان ولا ليال واحد أباهن دين هذا أباهن مسلمين هذا أباهن أنا أباهن هذا الكون أكثر وصدق رسول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مركب دلالة خيراتك كفا إذا وحبرتها قالت وحن كلو ربعنا نكو قدروا برتان وحبات كبران كرتاقي كلي أنك وحن ملايني بلا يلا بود هي وح كلا إن بهاش أنت وح لوجه له
وردتكنا وحبات كبري كرتا أدونا واتكبرن كرتا لماذا إيماني ستكبرن إيسان يعني وحول باتكو قبسن كرتان ولا ليال مشان ووحي إلهي النسيي شرنا ويلاده هاي فائدنا ويلاده فائدة ذا أبت مركا ولا ليال سدا سارين كل دردار ميا شيخ أنا وريتشينيا شيخ مرة انت هذا وريتشينين الله كبرك لبي أنا يا كلها ereyga koowaad horta sax waaye TikTok waa aalad iska dhib badan waaye waayga hore dadka fikir waxay aaminsanayeen hadduusan qofka xumeyn waxuun soo gudbinaynin caytamaynin niikinaynin heese isdul saaraynin ummadda uusan ku dhegaynin inuusan shacbiyad samayn karin inuusan dad samayn karin inuusan dad jecel ama wax follow ha noqotee inuusan family samayn karin dadka rumaysanaan jireen qofka waxa xun sameey bas inay dadka jecel yihiin ilaahay wuxuu qadaray dadaal fara badan adkaysi fara badan darteed iska dawareeg fara badan inaan maanta sameynay dad fara badan oo isku xiran oo family oo walaale ee aanan qofna qof kale qabiil u fiirinay inaan qol inta isugu imaano 500 oo qof 600 oo qof 1000 qofood qof aflagaadeynayna aysa jirin qof xumeynayna aysa jirin ilaahay noo fuuday waxaan dhalinyarada mar walba dhahaa inta lagu dhihi lahaa kii qabiilka ka hadlay kii caytamay kii heesay kii boodbooday wallahi waxa ka sharaf badan ilaahay xaqiisa laga jecel yahay shiiq iska dhiga in lagu dhaho shiiq oo iska dhiga in lagu dhaho gabadhii timaha u qaawaneed gabadhii niikineysay gabadhii heesa isa saaraysay tii jirkeeda la arkay tii macsida ku jirta inta lagu dhigi lahaa shiiqada iska dhigay wallahi ilaahay xaqiisa ka sharaf badan adduunkan uga sharaf badan tahay maanta dhalinyaro far badan arrintaasna la qaateen sheekh axmed khayr allah siiyo aaladan way u dowlad gareysana laakiin si fiican uguma uusa dhex jirin marka waxaa dhacday wadankoo noo imaaday culummada noo imaaday December tuu ku jiray 800 kilomitir oo uga safray gobolkii uu jooga uga tagay waa la kulmay marka nagama dhaxayso dan gooni nagama dhaxayso qabiil nagama dhaxayo shaqo nagama dhaxayso deegaan nagama dhaxayso marka waxaan ka dhameynaynaa cid walba oo ilaahay dartii ku walaalooda ee wax dan ka dhaxaynin in qiyaamaha fiisa janno ku gal inaa helno waa la soo laabtay gobolka haddaan deganoo imaado waa la imaaday meelaan ka wada casheen waqtiga la wada qaatay haddana waxaan dhahay sheekh axmedow TikTok live aadayna waalidiin fara badan aad joogo oo na sugaayo walaalo fara badan aad joogo na sugaayo hadda waxaan bilaabnay inaan haweenana su'aalo diini ah u qaban oo su'aal kastoo diini sheekh axmed u weydiiyo walaalo fara badan aan ugu xiran ka faa'iideystaan